ku rajaynayaa inaad waqtigaaga si fiican u isticmaashid oo 7-8 daqiiqo haystid kugu filan inaad isticmaashid sidoo kale waxaan u dhaafi doonaa markaad presentationka dhaafisid su'aalaha ku weydiin doonaan guddiga aad baad mahadsan tahay adiga magacaaga waxaan ka bilaabaya waad bilaabi kartaa okay shukran aniga magacaygu yahay maxamed cabdiraxmaan maxamuud waxaan maanta ka hadli doonaa soo bandhigidda qorshaha ganacsiga waxaan jeclahay inaan fikrad badan aad ka haysatiin bisna aniga waxaan hayaa in ku soo kori doono si aan u wadaagno xogtaan hayo bismillah magaca shirkadda waxa waa shirkadda gaadiidka dadweynaha Tawakal صح milkiilaha waa maxamed cabdiraxmaan maxamuud adreeska waa Hilwa Muqdisho Banaadir Soomaaliya emailka soo jeedin waa kaasa maxamed qadar 130 lambarkan waa kaasa maamulka ganacsiga dalka waxa maamuli doona aniga waa milkiilaha shirkadda Tawakal iyo kaaliyaashiida kala ah Abdullah Maxamed Abdullah Jamal Maxamed Jiso iyo Abdullah Xasan Abdi وكالياشي سدع صفات هذا هو شيء قد بين وجد كان أسمي جناعسيان أما سيقول لي وحيتا إن الماري قيسس كان له شو ذا سيد صالحان ضد كمبني كشقين دونه إن قيسس كده ماريان شغور الله سمي ضد كله صالح ضد كشقين حتى شقة كيلين وإن أي كله شغل أبورو إن البرشة قبل كبنادر عنسيو أديه كفنو جديد soo aragtay booq badan baa ka jiro gaadiidka markii laga hadlo soo problem baa ka jiro soo markii inay bulshada helaan waxay ku qancaan suuqa aan beegsanay macaamiisha soo meelaha ugu muhiimsan meelahan way suuqa aan beegsanay waa mid ganacsi furan iyo tartan furan leh tayaas aan ka sameynay dadka raacay gaadiidka gobolka Banaadir waa 1.8 million at least dadka baawarka raaca inta lagu yaasay 3 milyan dadka ku nool gobolka Banaadir dadkaasuna waxay rabaan waxay u baahan yihiin inay helaan gaadiid ku filan iyo kaasoo laga ilaalinayo inaysan baawar cariiri aysan helin salahan macaamiisha aan beegsanayo marka macaamiishu waa qof kasta oo raba inuu raaco gaadiidka si uu si fudud meesha hore ugu tago soo qofka macaamilka waa inaad baahidiisa aad ka tiri kartaa haddaan kasii gudbo waxyaabaha aan kaga fiicanahay dadka ila tartamay soo waxaa jirta competition aan mar walba ganacsi jiro competition way imanaya waxyaabaha way aragnimo aan u leenahay xirfadan waxa ka soo shaqeeya muddo dheer ayaa laga soo shaqeeyay dadka oo ala shaqada wadi doona waxay ka soo shaqeeyeen muddo aad u dheer wada shaqeyn wanaagsan oo na dhex mari doonta aniga shaqaalahayga barnaamijka ka hadashay waa gaadiid Soomaa magaalada Muqdisho hadda laftigeed gaadiid la'aan ma aha almost gaadiid uu buuxa faray ka batay macnaa fahamta gaadiid ka soo qaada degmada Kaarana wuxuu geynaa afgooy haddii afarta jid ama shanta jid magaalada Muqdisho ka kooban tahay wadada wadnaha iyo shaqaalaha iyo haddii la fiiriyo ilaa iyo wadadaas kale tooda warshadaha inta ka shaqeynaysa ka badan dadka oo mararka qaar wax raaca la waaya maxaa kaga duwanta ayaga oo adiga awoota ilaa caasi awoota ayagana caasi wataan caasigaada kooda kama fiicna kooda waa raacaa mar haddii kana waa la waaya adi marka competition macnaha meesha ka sii jira si cuslaynay maahan wax cusub oo macnaha dadka ku soo kordhis ma jira maxaa soo kordhis ya bajaajna way joogtaa almost macnaha suuq buuxdo caasi mar macnaha mataqaanaa laftigiisa loo soo tashtay caasidii hore joogay iyo bajaajti marka la isku soo daray intii hore joogtaba adi marka ku soo darto suuq waxa timid macnaha suuq buuxa timid almost macnaha suuq macnaha fulat maxaa faa'iidaas leedahay maxaa kaga duwan tahay ayaga laftigooda ما شاء الله وسؤال ونكسن مركز أنك جواب سؤال شو حيت هاي وحيابان كذا ونكسن هاي سو waxaan qofkan aan sii doono waxay tawaa horta qofku waa in bini'aadamka markaad macaamilin ka dhaxeeyo waa inaad xushmad aad leedahay soo dad gaadiidka aad raacdo soo waxa uu fiirinaya asaga waa dantiisa oo kaliya soo dadku isku mid maahan isku level maahan waa kala duwan yihiin soo salaamaanta dadka ardayda waa aragtay markii baawarka raacayaan qofkan wuxuu ku soo baxaa lacag yar uu ku soo tashkaa sala ay weerarkii soo siiyaan baawarka markuu intaas haysta waxa laga yaabaa in sometimes oo ka tago soo markii aan qof walba oo bini'aadana wax horaba haystee inaan ka tagin waxaan ugu wanaagsanahay qodobka koowaad qodobka labaad waxay tahay tartan baa meesha ka jira Soomaa tartanka markii qaabkan ku weyji karo waxyaabahan aan xalka u heli karo waxay tahay inaan qof walba dadka aan simo
إذا سنتو ها يعني كسو قاد مثلا مقفها كيري لعق عن قيمة معناها سورقلها نقول قاد كيري مثلا بسوق حولا سوق وحو كيري كوش نقول قاد إلا كاران يجي أم إلا مدينة يجي نقول قاد عازليد وحلا كذا تكاد حاكمية العقد مثلا بقرشك كوش نوشل صوماليا كذا مسوق قاد مدينة إلا متقن سوق حولا laakiin mar walba waxaad ku xisaabtamtaa soo maanta iyo bari waa kala duwan tahay soo qofkana maanta aad qaadayo bari wuxuu laga yaabaa inaad macaamiil badan aad ku hesho jeebkiisa soo maanta waxaa samaysaa ay barina ayaa kuu soo noqon doona in lacag la kugu talagalay kims in idinku maalgeliso in case hadii la isla fahmo macnaha oo qorshaha hor u sii socdo in way ka yar tahay inta adiga aad dalbanaysaan macnaha adiga macnaha almost hada 35000 aad dalbanaysaa macnaha hadii lagu yiraahdo qorshahaas $34,000 معناها 12 سكول almost هدي اللي يقول قرشات كاس فراها بدن لما ها maxaa ku maareynay suuragal ma hadii lagu yiraahdo ma bedeli kartaa qorshahaas oo qorshe lacageed kaas faraha badan leh ka soo degay hadii lagu yiraahdo adiga macnaha fiirina baawurtii in mid laga tagay noqonaysa markaas meeqa gawaareed ma kornaa 3 times waa 3 baawur waaye 3 baawur ha okay gawaarada caasimi ama soo coaster عاصمة عاصمة لكن تضبط أصير ما حد جوجا 6 كن تضبط كن جوجا مقالة موسك جوجا مركو قبض تضبط كم هذيك لما دم عاصمة برمضة أو 97 أو 98 أو مثلا 99 كيا وسوي كرتا أو باورت أو ساعد وينها أو جيرك أوتوماتيك أكوي ماذا عن هين كي أن بتكانوا مارت أو باورت يركا أو كلام هين وسوي كرتا بس محمد عن كودي لها أنا جنا waxaan noo sheegtay mushaar $450 inaad sii doontid shaqaalaha mushaarkaas marka calaa qof ma $450 uu tala gashay kaanoo cadday bal ma faahfaahsan kaas $450 Soomaan soo marka wadarta way ka badan tahay laakiin calaa qof waa $450 u fahamtay uu tala gashay mushaarka calaa bishi bil walba marka salahan hadaan ku sameeyo soo daroolkii krishbay waxay qaataan waxay tahay waa cash صح 300 iyo adiga 40 390 meelaas way cash aan hadii door ahaan loo bedelo $15 waa $15 marka ku dhufato bisha ku dhufato $450 kuma shilin Soomaaliya ama waa dollar waa dollar $450 waa oo mushaarka qof walba uu qaadan doono bil walba ma yal wadarta daroolkii kirshbooga wadarta oo labadooda isku jiro $450 qaadanaya baar walba waxa qaadana $450 qaadana kirshboogiisa daroolkiisa ay bishii qaadanayaan bil waliba waa marka la isku daro waxay noqon adiga lacag kun ku dhawaad xogaa kun ka badan aad ma santa maxamed insha Allah waan kula soo xidhi doonaa hadii aad ku guulaysid fursadan aad nasiib wanaagsan ma ku rajeynaa aad ma santa ay istaa ma sidin waqtiina qaalay soo taan shukran